inuu suuro gashay inaanu waraysanno mid ka mid a dadka Soomaaliyeed ee la soo tarxiilay maanta ninkaas oo lagu magacaabo Nuur Maxamed Maxamuud ayaa uriyahayga jaamac buule jaamac kula xiriiray qadka telefoonka Muqdisho wuxuuna weydiiyey bal sida loo soo tarxiilay inuu sharaxaad ka bixiyo سؤاليسكيga ani horta wuxuu ku imaaday jamal dibaato dheer ayuu ku imaaday waxaan ku xirnaa gobolka Florida muddo hal sano iyo 8 bilood camal ah celiskeygiina wuxuu ku imaaday dibaato dheer warqad soo saaraysa safaaradda Soomaaliya oo ahaa global community waasiinay waxaan noola diray xabsi jeela noola diray muddo hal bilan ku soo xirnaa oo ahayd February markaa February soo dhameystay March ayaa la soo qaaday waxaa lagu soo celiyay meeshii hore ee xabsiga hore kabacdina waxaa la keenay Louisiana ma garatay dhegeystayaasha bal u sharax safarkaaga marka hore maxaa lagu xiray Maraykan ku timid taas waxay noqonaysaa mid dheer Maraykan waxaan ku imaaday waddo dheer waxaan soo socday muddo 2 bilood ah oo la soo marayay webi bad buur dhibaatooyin aad u badan waa dareemi kartaa dhowr iyo 10 waddan la soo maray waxaan safarkayga ka soo bilaabay South Africa waxaan ku soo xijiyay Addis Ababa Ethiopia soo maray tarantas ku ahay Brazil ayaan ka soo degtay Brazil markaan ka soo degtay Brazil waxa igu xigtay Beirut waxa igu xigtay waddanka la yiraahdo Ecuador waxa igu xigay Colombia waxa igu xigay waddanka la yiraahdo Panama waxa igu xigay Costa Rica waxa igu xigay Nicaragua waxa igu xigay Honduras waxa igu xigay Guatemala waxa igu xigay Mexico ma garatay Maraykanka ayaad soo gashay maxaa lagu xiray sharciga miyaa lagu diiday ma eedayn kale ayaa jirta Maraykan ayaa soo galay waa diibay waxaan ka soo galay gobolka la yiraahdo Texas oo aad u taqaaniin waxaan bridge-gaan soo kormaray waa Maraykan ayaa isku dhiibay sharciyan weydiistay gobolka Florida ayaa la soo qaaday sharci waa la diiday inkastoo Soomaalida la iska daayo waxba sharci dhibaato ma lahayn Soomaalida ila xirnay dhan waa la sii daayay adiga waxaan ku harnay 20 camal ahayd inta kalena waa la sii daayay Soomaalida waa la iska sii daayay anaga criminalna ma ahayn dambina kama galin ma garatay Maraykan marka maxaa inta kale loo sii daayay 20kiinana loo reebtay anaga waxaa noogu daray 3 bilood waagi aan soo dhacay wiilashaasna micnaha hore laga sii daayay marka 3 bilood ku daray waxay safaaradda Soomaaliya ayaa shaqo bilowday safaaradiina si xoolo ay u shaqaynaysaa dukumeenti ay soo saaraysaa dukumeentigaas wuxuu soo baxay muddadii Agosto ahayd 2016 xilligaas oo safaaradda Soomaaliya ay soo saartay waxaan ku saxiixnay Saabid Cabdi Maxamed ma garatay bal waxaad nooga warantaa celintiina marka meeqa qof ayaad ahaydeen hadda markii la idin soo celiyay celinteeda ani horta gobolkan ka soo baxay Florida waxa igala socotay 12 laakiin celinteena waxa ahayn 72 qofood laba waxay ahayd Kenyaati 70 kalena waxay ahayd Soomaali waxaana ku jirtay hal gabar oo Soomaali ah ma garatay waa gartay marka aad leedahay Kenyaati maxaad ka wadaa laba wiil oo Kenyaati oo ayna la soo celiya ku jirta oo Kenyan ah Soomaali ma ayan kuwaas laba wiil oo Kenyan ah oo Kenya lagu reebay ayaa jirta ma garatay kulli dambi inay galeen u maleynaya wadankooda lagu soo celiyay marka Soomaali Kenyan ma aha waa Kenyanka kala miya waa Kenyan waa Soomaali Kenyan ma waa Kenyan 70 kalena waa Soomaali caadi ah inkastoo maanta xataa shaqaaqa ay ka dhacday airportka Jomo Kenyatta waxa ku dagaalamay meesha Soomaalida iyo qolada Iceland oo kulliyo garanaysa Maraykanka nimankaas naftooda gacamaysa qaadin waxa la diiday saxiix ay qaadaysa micnaha faro iyo inay qaadaysa dawladda Kenya waa laga diiday ma garatay shaqaaqadu waxay ka timid in faro laga qaado si ay dadkaasi Kenya ugu soo noqon ayaha dambe miya ayaa dambe laakiin waa ka dagaalanay waana ka hor istaagnay anagana waxa waa diyaaradda asaarneen iyo buuq iyo sawaxankii isku soo baxay airportka nimankii Ice ee Maraykanka ahay kadib waxay ku guuleysteen inayna dhex galaan diyaaradda Juba Airways oo ayna kulay wax ka ogeed barnaamijka dadkana soo qaado ay diyaaradda soo dhigatay ayada ayaana la saaray saxiixina waa ku guuleysteen inaan la ka qaadin waana soo duulna ma garatay ugu dambeyntii Nuur waxaad noo sharaxdaa adiga qorshahaagu muxuu yahay haddii jidkii dheeraa South Africa ilaa iyo Maraykan aad martay uu ku soo dhamaaday in xamar lagugu soo celiyo maxaad iska waraysateen dadkii diyaaradda wada saarnaa waa dareemi kartaa qorsheeni meeshuu ahaay iyo qofkii la soo celiyay micnaha dadka qaar waxa waaye mustaqbalkiin hadda kulay waxa ku ciyaaray ninka safiirka Soomaaliya oo micnaha si xun sameeyay mudadka dhibaatada soo maray oo og yahay wax dhibaatada qarash ka baxday qof og yahay hadda wax la sameey karo ma laha meesha waxa qof la soo celiyo waxa waaye nin walba micnaha garoonka eedan cadda international lagu daadiyay xataa waxa xusid mudan ay ka iloobay dhalinyaro kamid ah maanta meeli aada xataa ma aqoonin dadka qaar Muqdisho looma degno waxa ma haystaan ayagoo boorka iridooda tayna la kala tagay ma garatay kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Maxamuud oo ka mid ah tiro Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho dib loogu celiyo kuwaas oo laga musaafiriyay waddanka Maraykanka